xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dhawaanahan howlo shaqo u joogay gobolka Hiiraan ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Cabdirasaaq Aadan Qoslaaya ayaa ka soo diray warkan Muqdisho. xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo muddooyinkii dambe howlo shaqo ku joogay degmada Ceel Cali ee gobolka Hiiraan ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. xildhibaan Maxamed Maxamuud Ibraahim Goodir oo kamid ah mudanayaashii ayuu booqashada ku tagay gobolka Hiiraan ayaa imaanshiisa Muqdisho kadib waxa uu la hadlay TV-ga Somali Channel xaruntiisa Muqdisho isagoona faahfaahin ka bixiyay intii ay ku sugnaayeen gobolka Hiiraan waxyaabihii ay soo qabteen. marka ugu horeysa mahadsantiin Somali Channel marka labaad annaga muddo bil ku dhow waxaan ku maqnaa gobolka Hiiraan si aan kormeer ugu soo sameeyay degmooyinka gobolka Hiiraan qaarkood sida degmada Beledweyne iyo degmada Ceel Cali iyo deegaanada hoos yimaada. waxyaabaha aan u tagnay degmada Ceel Cali gaar ahaan waxay ahayd halkaas oo dhawaan laga xoreeyay qolooyinkii nabadiidka ahaa halkaas oo aan rabnay inaan moralkan u dhisano una xoojino gaadiid iyo raashin iyo daawo iyo aan wadnayna aan halkaas u gaarsiino. reality dadkaas waa dad diyaar u ah inaysan dib dambe ugu soo noqonin shabaab doonaya inay isdifaacaan. xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku dhaqan degmada Ceel Cali ee gobolka Hiiraan in ay si weyn ugu soo dhaweeyeen markii halkaasi ay gaareen wufuudii ka socotay dawladda federaalka Soomaaliya. waxa uu sheegay in shacabka ku nool halkaasi in aysan dib dambe ugu soo laaban doonin al-shabaab oo uu tilmaamay in muddo 8 sano ah ay gacanta ugu jirtay degmada Ceel Cali ee gobolka Hiiraan. waxaan halkaas kula kulannay dadweynihii waxay dadkaasi diyaar u ahaayeen waxay xor ka ahaayeen muddo 2 bilood ka yar waxaana haysteen qolooyinka shabaabka 8 sano. waa garan kartaa 8 sano meesha la haystay dhibaatooyinka ka muuqda cadaadiskii haystay runtii aad iyo aad u faraxsanaayeen si farxad leh noo soo dhaweeyeen. annaguna halkaasi waxaan ku guddoonsiinay gaadiidkii degmada iyo ciidanka bay isticmaalayeen deegaanka ay isticmaal lahaayeen. waxay isla markiiba keeneen 150 wiil oo qoryahooda fudud iyo culus wata. annaguna waxaan ku taakulanay saad iyo raashin wixii la heli karayay oo markaas aan sidnay iyo 15 kartoon oo daawooyin ah oo degmadii ciidanka waan ugu talagalnay. wafdigani horay u gaaray degmada Ceel Cali haatan dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa waxay soo kormeereen xabsiga dhexe ee degmada Ceel Cali, iskuulada qaar ee ku yaala halkaasi, goobaha ganacsi ee degmada Ceel Cali, ceel biyoodyada ku yaala degmadaasi iyo saldhigga booliiska. intii wafdigaasi uu ku sugnaa degmada Ceel Cali ayaa waxa ay kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaankaasi. Cabdirasaaq Aadan Qoslaaya, Somali Channel, magaalada Muqdisho.